بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada casharkeeni koowaad weeyaan oo qolihiina Afrika jooga aynu maaragtay wadaagno soo kusoo dhawaada casharkeedan guys waxa weeyaan waa keeni noogu horeeyay insha Allah kuwa badanna waan yeelan doonaa and just mood baan ku gelinayaa fahim maadaama record garaynayo okay so and waxa la yidhahdaa soo dhawee horumarinta nolosha shakhsiga qoyska iyo bulshada laakiin casharkeenu sideeda waa in horumarka xaguu ka bilowdaa weeyaan kaas baynu focus ka saaraynaa marka soo dhawaada insha allah intii nigula jirta iyo intii hadhow dhegeysan doontaba soo dhawaada insha allah waa tana waxaan ka codsanayaa marka hore qof kastoo markaad casharkan kasoo qayb gashid ama dhegeysan doontid hadhow la kaalay ama yeelo maskax iyo qalbi furan oo waqti kooban weeyanta lagaa raba inaad saa yeeshid qofkan way u fiican tahay sideedaba inuu yeesho maskax iyo qalbi furan oo aanu noqon qofun qama ah aan waxba dhegaysan isaga isla quman waa tahay waan dhammaantiin waan idin ixtiraamayaa intiina dhegaysanaysaa waan isku dayay inaan cidna maaragtay xadgudub ku samaynin ama aanan hadalka si aan habboonayn ugu dhigin insha allah si fiican baan isu dhegaysanaynaa oo marka qofku wax hadlayo qofka kale waa la dhegaystaa si fiican baa loo dhegaystaa haddii ay su'aal qabtid ama ay markaas kugu soo dhacdo waad iga dhex geli kartaa waxaan ka hadlayo su-aashaada iyadoo qoraal ah iyo iyadoo hadal labadaba waad ila wadaagi kartaa waanaan isku dayay inaan ku dhex daro casharka ka jawaabisteeda ama haddaan loo baahdana markaas baynu ka jawaabaynaa ii ogolow marka u ogolow qofka hadlaya inuu dhammaysto hadalkiisa soomaalidu waa taqaanaa hadalka maaragtay waxay yidhahdaan hadal lama wadaagi caanaa la wadaaga haddana iyadoo sidaa tahay ayay qalindaarkoodu wuu badan yahay saddex qof aad arkaysa meel ku sheekaysanaya mid u ogolo inuu hadlo ka kale ma jiro laakiin halkan ma jirto sidaas ama ana hadlaya ama adiga hadlaysid midkeenu baa la dhegaysanaya any given time bug iyo qalin soo qaado waxyaalo badan baan kula wadaagi doonaa qoro waa la qortaa wax wanaagsan aad maqasheed aadan hore u maqlin ama aadan ogeyn waa laga faa'iidaystaa ugu dambeynna waan kaaga mahadnaqayaa kasoo qaybgalkaaga wanaagsan ee nagala soo qayb gashay soo dhow marka waa kulankeeni koowaad weeyaan waa tan haddaba casharkii inoo daadihinaya anaa idiin daadihinaya iyo saaxiibkay faahiye ayaa idin daadihinayna anigu khaasatan casharkan ayaan ku qoranahaynan idinla sheergara magacayga waxaa la yidhahdaa ustaad maxamed ibraahim ducaale ayaa la yidhahdaa ustaad maxamed ibraahim ducaale waxaan ahay macallin baan ahay waxaan kaloo ahay tababare weliba tababarka qaybtan kasoo gala waa horumarinta nolosha shakhsiga personal developmentkan kasoo gala waxaan ahay dhiirigeliye baan ahay oo hadalkayga intiisa u badan iyo ficilkayguba dhiirigelintaasi ku dhex jira waxaan ahay tababare nololeed oo dadka waxaan ka tababaraa sidee bay u noqon karaan qofka ugu wanaagsan uu noqon karo wax soo saarkiisa socodkiisa ayaan kala shaqeeyaa iyo hadduu haysto himilooyin uu doonay inuu ka mida dhaliyana si fiican baan ula eegaa kuwaasna waxaan ahay waan hagaa dadka qaar badan oo aad dariiqu xogaa ka leexday ama aanan garanayn meeshay u socdaan waxaan u noqdaa qof isagu taageera sidii halkaa u gaari lahaayeen waxaan ahay la taliya dad badan baan la taliyaa waxyaalo badan kala taliya oo dhaqaalaha ku saabsan waxbarashada caafimaadka horusocodka qoyska bulshada iyo even marka qaarkood arrimaha la xidhiidha siyaasadda wixii lamid oo dadka sidee baynu hogaamiyeyaasheena waddankeena dadka hogaanka haya ay si fiican hogaanka u qaban karayaan soo dhawaada guys waatan waxaan ahay xidhiidhiye haddii aad barnaamij haysato waan kuu xidhiidhin karaa anigu xaggan jooga haddii xagga joogo meesha dunta joog anaa ku facilitation baan ku samayn karaa facilitator wey taas xidhiidhiyaha lagu sheegay wax kale maaha ugu dambeyna waxaan ahay environmentalist arrinta cimilada iyo deegaanka aad baan maaragtay waxaan ku hayaa dareen badan baan u hayaa in dadkeenu ay u istaagaan inay cimilada iyo deegaanka wax ka qabtaan haddii kale inaga oo dhan ayayna saameynaysaa arrintaasi above all waxaan ahay arday nolosheeda inta ka hadhay macallin baan ahaa for 24 years hata approximately laakiin ardaynimadu marna igama dhammaato nolosheeda inta ka hadhay waxaan isqoray arday waayo aqoontaada iyo cilmigaagu waxa weeyaan way kula socotaa meesha tagtid qalbigaaguna waa meesha aad ku kaydisid aqoontaada iyo maskaxdaada
maaha bugaagta aan isdaba sidno aqoontu. Buugaad siiyatid nin kala qoray adigu ma lihid, aqoonta ku qoranna adigu ma lihid. qof kalaa leh maskaxdiisa kasoo maaxday, laakiin adigu waxaa tahay waad sidataa. waa tahay waxaan ku bilaabayaa haddaba casharkeenna. goor kasta ikhtiyaar baad leedahay. You always have a choice. goor kasta ikhtiyaar baad leedahay. ikhtiyaar baad leedahay inaad nagala soo qayb gashid oo aad si fiican u dhegaysatid oo aad ka faa'iidaysatid. ikhtiyaar baad u leedahay sidoo kalena intaad wax dhegaysatid aadan waxba ku samaynin. ikhtiyaar baad u leedahay in ay macallimiintiinu waxay idin sheegaan aad si fiican u weelaysaan, ku dhaqantaan, noloshaada wax uga bedeshid oo hore u socotid. qofku mar walba wuxuu leeyahay ikhtiyaar. yani gunbay ka tolantaani waa meesha ay qofka nolosha bini'aadankiisu horumarkiisa iyo noloshiisa waa meesha ka bilaabmaysa. waa ikhtiyaarka, waa choiceka, waa waxa aad dooratid. waa waxa aad dooratid iyo sida aad u dooratid. labaduba saameyn bay ku yeelanayaan waxa aad kala kulantid noloshaada iyo waxaad ka heshid iyo waxaad ku qabsatid. soo dhawaada markaa. casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay maanta dhowr qodob. ka ugu horeeya, horumarku halkee buu ka bilaabmaa. baynu eegaynaa yeelashada habfikireed wanaagsan maxay kugu soo kordhinaysaa. inuu qofku fikirkiisa siduu u fikiro wanaajiyo oo hagaajiyo, qofka maxay ku kordhinaysaa, maxayse ka dhimaysaa, maxayse yeeli kartaa, maxayse u samayn kartaa. yeelashada niyad fiican, inuu qofku niyad wanaagsan oo fiican yeesho, maxay iyaduna ku kordhin kartaa. maxay suluugiisa, akhlaaqdiisa, aadaabtiisa, habdhaqankiisa, horumarkiisa, farxaddiisa, guushiisa, waxqabadkiisa, niyaddiisu maxay ku yeelan kartaa, saameyn intee la-eg bay ku yeelan kartaa. waxaynu kaloo eegaynaa inuu qofku noqdo qof waxqabad noloshiisu ay tahay inuu wax qabto, not inuu hadlo. maantao dhan baynu hadli karnaa, hadal badan ahaan ma buuxshee, inagoo dhan baa hadli karnaa, laakiin hadalku waa hadal. waxqabadku waa ka keenaya inuu qofku waxaanuu leeyahay waan samaynayaa inuu kaga dhabeeyo. so waxqabadku ama actionku, ficilku waa miftaaxa guusha iyo horumarka iyo farxadda. intuu qof meel iska fadhiisto ma filayo inay wax u qabsoomayaan haddaanu ku dhaqaaqin waxaanuu leeyahay waan samaynayaa. hadday tahay inuu af cusub barto, af ingiriis sidoo kale tusaale ahaan tusaale fiican weeyaan. waa af inagoo oo dhan aynu u baahan nahay inaynu baranno, maadaama ay wax badan ay inaga xidhan yihiin, adduunkana ay tahay luqadda hadda ugu badan ee ay dadku ku hadlaan. baa jiri jirtay carabigu markuu muslimiintu ay si fiican u talin jireen oo ay haayeen dadka iyagu dariiqa wanaagsan qaaday oo dariiqii loo jeexay qaaday. hadda way ka leexdeen qaar badani, ama mugdi baa kaga jira ama ceeryaan, kuwaasina iska daba wareegi waa ku batay. laakiin dadkii hore dad waxqabad bay ahaayeen. hadday yidhahdaan waxaasaan samaynaya way kaga dhaban jireen. adiguna sidoo kale iyo anigii adiguna sidoo kale waa inay inaga go'an tahay in aynu waxqabad la nimaadnaa. soo dhaweynta isbeddelka, markuu qofku fikraddiisa uu bedelo uu wanaajiyo, niyaddiisa uu ka dhigo midii maaragtay wax wanaagsan mar walba ku jirto, waxqabad uu la yimaado, waxaan shaki ku jirin isbeddel baa imaanaya. sidii hore lagugu yaqaanay si ka gedisan baad noqonaysaa. soo dhawey haddaba isbeddelka. ta ugu dambaysana aan eegayna waxay tahay aqoonsashada himilooyinkaaga. inaad ogaatid waa maxay waxyaalaha aad doonaysid inaad ka midho dhalisid. miyaad haysataa himilooyin aad doonayso inaad ku guulaysatid? miyaad taqaanaa meeshaad ka bilaabi lahayd iyo meeshaad ku dhammayn lahayd iyo saad ugu guulaysan lahayd? miyay kuu bilaaban yihiin sida loo qoro, sida loo qorsheeyo himilada tallaabo step by step, oo qofku dariiq cad loo jeexo, halkana laga bilaabaa, halkana lagu dhammeeyaa, inta u dhaxaysana waa loo qorsheeyaa sidii aad ugu guulaysan lahayd. waa tahay haddaba aynu eegno su-aasha ugu horeysa. wixii su-aalaad waad weydiin karaysaan, markasta waad iga dhex geli kartaan. qofku doonay inuu su-aal weydiiyo, microfonka uu shidan kara wuu weydiin karaa, haddii kale iyadoo qoraalana wuu ila wadaagi karaya. dib kuma qaba taas inaan iyadana la eego. haddaba waxa hadda la isku waafaqsan yahay waynu gogol xaadhanaynaa horumarku halkee buu ka bilowdaa. waa maxay
waxa ugu weyn ee ilaahay inagu galladaystay ee inoo horseedi kara inaynu bilowno qaadidda dariiqa horumarka. Waxa la yidhahdaa waa $1 million question. Million bay u dhigantaa su-aashaa jawaabteedu iyo plus iyo wax ka badan. meesha qofka bini aadanka intuu dib u fadhiisto yidhaahdo waa maxay nicmada ugu weyn ilaahay igu galladaystay ee ii horseedi karta inaan qaado ama bilaabo qaadista dariiqa horumarka. It's a big question. waa maxay ilan adiga oo markaad ilaahay uu ifkan ku keenay uu ilaahay waalidkaa uu adiga ku siiyey inaad u noqotid ilmo de waxaa shicadoo kalaad ahayd markaas oo adduunka timid waxaan oo dhan kuguma qornaa ma taqaanid waxay tahay. qofku markaa bii'ada uu ku nool yahay ayaa u horseedaysa inuu ogaado waa maxay waxa uu ilaahay nagu galladaystay. waynu loo sheegay dhammaanteen waynu leenahay maadaama ay tahay hadiyad ilaahay ina siiyey. ilaahay baa ku siiyey waxaa la yidhahdaa God given gift. Our God given gift. ilaahay baa ku siiyey. ilaahay waxyaalo badan bina siiyey uga mahadnaqaynaa habeen iyo maalin. lain shakartum la aziidanakum waad yahayd. waatan waa waxa saameyn weyn ku leh wuxuu ku leeyahay haddaan tan iska soo dhaqaajiyo xagan keensado. guys, I need to bring it here. Okay, that's better. saameyn weyn ku leh wax kasta oo aad doonayso inaad qabsatid. waxa uu ilaahay kugu galladaystay waa meesha horumarku ka bilaabmayo. waa wax saameyn weyn ku leh wax kastaad qabanaysid ama aad doonaysid inaad ka midho dhalisid. sida waxyaalahaas maxaa ka mid a kuwan baa ka mid a sorry guys waxaa ka mid ah waa tan waxbarashada baa ka mid a. matalan qof kasta oo bini aadan ah oo daneeya inuu horu socdo wuxuu doonaya inuu wax barto oo tan aan la isku waafaqsanayn qofku inteebuu wax baranaya in intee la eg inta noloshaada ka hadhay ama in kugu filan adaa go-aanka gaaraysa taas. 2 caafimaadkaaga saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. 3 guushaada ama inaad guul gaadhid ama inaad noqotid qof guulaysta saameyn bay ku leedahay weyn. curintaada inaad wax curisid wax cusub adduunka kusoo kordhisid ama aad curisid book gabay ama xikmad system curin baa laga hadlaya waa creativity baa leedahay wax soo saar weyn qayb ka mid weyn. iyo inaad adiga waxyaalaha aad doonayso inaad nolol maalmeedkaaga kala soo baxdid courier baa leedahay macallin aad noqotid